wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo qayb kale oo ka mid ah sheekadeennii taxanaha ahayd ee ku saabsaneyd basaaskii Israa'iil qayaanayay in ka badan 18 sano. qaybtii hore ee sheekada waxay inoo joogtay markii uu yidhi dhankayga waxaan garwaaqsaday saxnaanshaha hadalkooda ee ahaa in ay furan tahay doorashada inaan sii wato shaqadayda ama inaan isaga guuro dal kale. waxaanse doortay midii ugu dambaysa oo ah inaan bilaabo raadinta hooy goob aan ka dhigan karo iyo gabadha aan guursan lahaaba. waxaana galay tiro safarro ahaa oo indhe-indheen iyo helidda dhaqaale ah oo aan doonayo inaan ku soo fushado howshayda. qaybtii xigta ee sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan: kulankii basaaskan iyo golaha wasiirada Israa'iil. bishii Oktoobar sannadkii 1963 ayaa Jarmalka waxaan kula kulmay saaxiibkay Horst Sommer. Horst wuxuu xilli hore u ahaa ruuxaan isku baranay shaqooyinkii ganacsiga ee aan wadi jiray. waxaana uu ii sheegay in isaga iyo gabar uu doonayo inuu guursado ay xaflad soo dhoweyn ah iigu samayn doonaan hoteelka magaalada caanka ka ah ee sida weyn loo wada yaqaano. wuxuuna iga codsaday inay soo raaci karto gabar kale oo saaxiibtii ay asxaabi ahaayeen. anna waan ka aqbalay maadaama aan u arkay fursad oo aan ku baran karayo gabadhaas, suuragalna ay tahay inay noqoto midda aan baadigoobayo waayihii ugu dambeeyana aan raadinayay si ay u noqoto xaaskii aan ku degi lahaa. xasuus qorkiisii racfaad wuxuu ku yidhi, gabadhaas adiga ayaad noqotay oo hadda waxaan kuu qorayaa xasuus qorkan. aad ayaan u xasuustaa kulankaasaan isku barannay iyo sidii aan ku bilownay isbarashadeennii labadeenna. intii aad ku jirtay inaad iiga warranto taariikh nololeedkaada, waxaan yaqiinsaday inaad tahay baadidii aan aadka u racdaynaya muddada dheer. wax yar oo shaki ahaana xitaa igama uusan kaa gelin, sababtoo ah noloshii aan ku taamayey ayay u muuqataa inaad buuxinayso. xitaa anigoo ogaa inaad guur hore u soo martay gabarna aad haysatid, haddana go'aankayga wuxuu ahaa inaan ku guursado oo taasi kama aanan labalabayn. waxaan go'aamiyey inaan si degdeg ah kuu guursado. markii aan isla raacnay tagsiga oo aad ku degaysay albaabka gurigaada, waxaan kuu sheegay in aan u socdaalayo magaalada Vienna oo caasimadda Awstriya ah, kadibna aan 10 maalin halkaas ku maqnaanayo oo aan adiga ku guursan doono marka aan soo laabto. waan hubaa inaad ka yaabtay go'aamadaydii degdega ahaa. xilligaasi Vienna uma aanan socon ee Milano oo Talyaaniga ah ayaan halkaas u socday. waxaana halkaa u aaday mas-uulkii masaarida ahaa ee basaasiinta masaarida halkaa u joogay si aan ula wadaago xogtayda iyo xogtaada, sidoo kalena loo hubiyo inaadan ka tirsanayn sirdoonka Muusaad ee Israa'iil ama Jarmalka midka ay leeyihiin ee BND-da loo yaqaano. baaritaan dheer kadib inaadan ka tirsanayn sirdoonka Muusaad iyo sirdoonnada kale ayaa soo baxday. 10 bir ayayna qaadatay baaritaankaas. waxaana soo baxay natiijadii iga farxiso oo ah in aan adiga ku guursan doono oo midna aadan ka tirsanayn ururada basaasiinta. kadib markii aan ku soo laabtay magaalada Frankfurt oo dalka Jarmalka ah oo adiga aad joogtay, waan kula soo xiriiray anigoo kuu sheegay inaan doonayo xaqiijinta warkii guurka. aad ayaad u yaabtay mar kale. markii aan kulanayna waxaad ii dhaqaajisa dhanka iyo gurigeenna si aan ula kulmo hooyada oo aan ka dhaadhiciyo guurkeenna iyo inaan arko gabadha lagu magacaabo Andrea. hooyadaa waxay ahayd hooyo aan ka helay soo dhowaynteeda iyo naxariista badan, laakiin aabbaha markii uu ku qanci waayey guurkeenna degdega, walow aan qabay inuu dib uu isaga kaa qanci doono, haddana markii hore wuxuu ahaa ruux aad u adag oo aan dareemayey in uu idiidi karayo. kadib waxaan isku raacnay magaalada Paris oo halkaa aan ka degnay hotel. waxaan xasuustaa inaan 3 saacadood aan kaa maqnaa oo aan la kulmayey mas-uul masaarida ah oona qaabilsanaa isgaarsiinta oo aan u sheegaya xaaladeyda. kadibna waxaan u ruqaansanay dhanka iyo magaalada Tel Aviv oo aan hoy ka dhigannay. in muddo ayaan halkaas deganayn. waxaan ku qaadannay waqti aad u qurux badan oo waan ku soo damaashaadnay goobaha bilicda leh ee magaalada. kadib dhammaadkii Diseembar ee sannadkii 1964 waxaan dib ugu soo laabannay dalka Jarmalka si aan waqti kale u sii qaadanno, annaga oo la qaadanayno qoyskaada oo ka koobnaa labadaada waalid iyo gabadhaada. maalmo qurux badan oo aan la soo qaadannay kadibna waxaan dib ugu soo laabannay magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah. halkaa ayaan anigii keligii ka soo safray markaan oo aan soo aaday Faransiiska sida aan kuu sheegay, laakiin dhabtii waxaan soo aaday magaalada London. waxaan halkaa kula kulmay madaxdii masaarida ee qaybtooda oo aan la wadaagaya warbixinno ku saabsan wixii ka soo cusboonaaday isbahaysigii Jarmalka iyo Israa'iil. sidoo kalena waxaan faahfaahin ka siiyey doodaha ka taagnaa biyaha webiga Urdun ee u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil. intaa kadibna waxaan soo maray Frankfurt oo aan aabbahaa ka codsaday in gabadhaada Andrea uu kuu keeno. nasiib wanaag wuu iga yeelay.
kadibna si kadis ah ayaan talaafiib kuugu keenay gabadhii oo aad si weyn ugu xiistay. waxaanse ogahay inaad akhrinaysid qoraalkayga adiga oo xanaaqsan maadaama aan idin dhex geliyey hardan u dhexeeya dowlado, laakiin i aamin, aniga ayaa in badan idiin taxadaray, dadaal badanna geliyey ammaankeenna. sannad kadib guurkeennii, xilli uu inoo dhashay wiilkeennii daniyel, waxaan aaday magaalada talaafiib halka adiga iyo labada cunug ee jarmalka aad iiga harteen. waxaan halkaa madaxdaydii aan uga soo diray xog sheegaysa in jarmalka israa'iil uu u soo dhiibay hub qiimihiisu uu gaaraya $200 milyan oo dollarka Maraykanka. hubkaasi wuxuu ka koobnaa diyaaradaha helikobtarada, taangiyada, maraakiibta iyo doomo dagaal. jamaal cabdinaasir oo ah hogaamiyihii dalka Masar wuxuu go'aansaday in xogtan uu ka soo qarxiyo dalka Jarmalka, laakiin Jarmalka aad ayay isaga fogeeyeen warkan. maalmo kadibna waxaan magaalada talaafiib aan kula kulmay si kadisa sarkaalkii diyaan ahaa oo ii sheegay in magacayga lagu daray liis dhowaan la soo saari doono oo ah golaha wasiirada cusub ee Israa'iil. marna aad ayaan keligay si hoose iskula qoslay maadaama aan ogahay xaqiiqada qofkaan ahay. marna waxaan dareemayay inay halis weyn igu noqonayso inaan wasiir noqdo maadaama sirdoonka gudaha ee Shiinbeed ay aad ii baari doonaan. saaxiibkay diyaan waan u cudur daartay, waxaana u sheegay inaan dhowaan aan u wareego dalka Jarmalka, halkaasna aan ku noolaan doono. waxaan bilaabay inaan suuqgeyn u sameeyo saamigii aan ku lahaa shirkaddii safarada si aan isaga iibiyo, halka dhanka kalena aan bilaabay inaan wax ka sii akhriyo ganacsiga shidaalka si aan shidaalka ugu shaqeeyo markii aan Jarmalka ku laabto. intii xaaladaas aan ku jiray, waxaa sii xumaaday xiriirkii siyaasadeed ee Masar iyo Israa'iil, taasoo bilow u noqotay dagaalkii 1967. dhankayga waxaan helay xog aad u fiican oo ahayd in Israa'iil ay samaysay sahmin ku aadan saldhigyo dhowr oo ciidamada cirka ay leeyihiin. saldhigyadaasi qayb ka mid ah waxaa lahaa dalka Masar. Israa'iil sahminteeda waxaa ka mid ahaa inay sawirro ay ka qaadatay qaab dhismeedka saldhigga ciidamada cirka, taasoo u sahashay inay gudaha Israa'iil ka sameeyaan kuwo la mid ah si ciidamadooda ay ugu soo tababaraan habkii ay u weerari lahaayeen. waxaan madaxdeedii Masaarida la wadaagay digniinta ah in Israa'iil ay Masar ay ku bilaabayso weerarka, laakiin nasiib xumo warkaygii dheg jalaq looma siinin. waxayna iska dhaadhiciyeen in Israa'iil aysan cidi weerari doonin, oo haddii ay cid weeraraysana ay aadi doonto dhinaca iyo sidoo kale Suuriya. bishii May sanadkii 1963 ayaa uu Jamaal Cabdinaasir waxa uu ka xiray doomihii Israa'iil marinka Tayraan, halka bishii Juun ee isla sanadkaasi Israa'iil ay weerartay saldhigyada ciidamada cirka ee Suuriya, Ciraaq iyo Masar iyo Urdun weliba si siman. run ahaantii aad baan u xanaaqay habeenkaas, sababtoo ah inta jeer aan u digay hal ma ahan, xitaa ima aysan dhegaysan. bilowgii 70aadka waxaa xilka dalka Masar la wareegay Anwar Saadaad, halka anigana aan weli baadigoobayo cid iga iibsata saamigaygii shirkadda oo aan ku lahaa. waxaana isku aragnay fagaaraha Talaafiib ninkii daayaan ahaa. wuxuuna ii sheegay in Ruushka uu doonayay in Masar ay ka mid noqoto dowladaha taabacsan Soofiyeedka. intaasi kadibna waxaan isaga huleelay Israa'iil aniga oo u soo hayaamay dhanka iyo Jarmalka oo aad adiga joogtay. waxaan aasaasay shirkad aan u bixiyo BTM oo ka shaqaysa kala iibsiga shidaalka. runtii si fudud ayay u soo xaraysay faa'iido fiican, kadibna Jarmalka ayaan isaga noolayn in muddo ah. halkaa ha inoo joogta qaybta xigta ee ku saabsan sheekadii sirdoon basaaskii 18 sano ka dhex qadeynayay gudaha sirdoonka Israa'iil. qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.